Dowladda Itoobiya ayaa wajahaysa burburkii ugu weynaa abid oo dalkaasi galo. Jamhadda TPLF oo in muddo ah ka soo talinaysay waddanka ayaa imika soo laba kaclaysay oo dowladda u awood sheegatay isla markaana ka qabsatay qaybo badan oo ku yaala waqooyiga dalka Itoobiya. Isbahaysiga TPLF ayaa waxaa ku biiray Jamhadda OWL ee xoreynta shacabka Oromiya. dhanka kale qoomiyadaha Canfarta iyo Amxaarada ayaa weli garab siinaya dowladda inkastoo ay u muuqato in dowladda laga awood roonaaday. dhanka kale shucuubta koonfureed iyo qoomiyadda Soomaalida ayaan weli wax baaq ah oo dagaalkaasi ku saabsan ka soo yeerin marka laga reebo qoomiyadda Soomaalida oo ismaamulka Soomaalidu ku baaqay in shacabka Soomaaliyeed ay isdifaacaan isla markaana aynan u laaban taariikhdii madoobeyd ay ku dhigtay ururka TPLF. Ra'iisul Wasaare Abiy ayaa u muuqda mid ka qoomameynaya siyaasaddii uu horay ula ciyaaray kooxda TPLF. wadamada Geeska Afrika iyo caalamka ayaa ku baaqay in la sameeyo xabad joojin dhinac ay sameeyaan. dhanka kale Ra'iisul Wasaare Abiy ayaa wax garab ah ka helin isbahaysiyaddii uu la sameeyay wadamo ka tirsan Geeska Afrika iyo Soomaalidu ku jirto. Siqtanka kooxda TPLF ayaa ku soo siqaya waqooyi qaybo badan oo ka tirsan waqooyiga dalka, gaar ahaan caasimadda oo deegaano kaabiga ku haya ay qabsadeen maalmihii la soo dhaafay sida Arbacadii iyo Talaadadii. Itoobiya ayaana markaan u muuqata mid galaysa xaalad ka duwan xaaladihii hore, iyadoo ahayd sanadihii la soo dhaafay dowladda ugu quwadda weyn dowladaha Geeska Afrika, balse maanta waa ay ka bedelan tahay xaaladda ay imika ku sugan tahay. wixii ka soo kordha xaaladda dowladda Itoobiya iyo guud ahaan dalka, kala soco shabakadda caalamiga LM24 TV oo soo follow garay page-kan iyo barta aan YouTube-ka ku leenahay oo subscribe na dhihi kartaan si aad noola socotaan mar walba.